waa mid ka mid ah dagaaladii bedelay khariidada jasiiradda Carbeed waqtigaas. Waxa uu ahaa dagaal ay muslimiintu ku muujiyeen awoodooda military. Waa iska horimaadkii ugu horreeyay ee dhex mara boqortooyada Roman Empire ee waagaas ugu tunka weyneed adduunka iyo ciidamada muslimiinta, iyadoo ayba furu noqon doonto dagaalo badan oo lagu furan doono Shaam. waa dagaalkii dhexdiisa dhacday qorshihii dib u gurasho ee abid ugu weynaa taariikhda soo jireenka ah ee aadanaha. bishii Jumaada al-Uula sanadii 8 hijriyada oo ku beegneyd August sanadkii 629 miilaadiga. nabigu waxa uu diray saxaabiga al-Harith ibn Umayr al-Azdi isagoo rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatay kasta warqad una sida boqorkii Basra ee Harith ibn Abi Shamr al-Ghassani. warqadda taasa oo nabigu ugu soo bandhigay inuu qaato diinta islaamka ah. hilaadaas dhulka Shaam waxaa ka tilinaysa boqortooyada reer Yurub ee Roman Empire ee uu madaxda ka ahaa Hiraql. saxaabiga warqadda nabiga ka siday ee Harith ibn Abi Umayr al-Azdi intii uu jidka ku sii jiray siimahan tuulada Mu'ta markii uu mariyay waxaa gacanta ku dhigay nin la yiraahdo Sharxabiil ibn Amr al-Ghassani, kadibna waa u dilay. waagaas dilka loo geystay fariinsidayaasha ama safiirada dawladuhu dirsadaan waxa ay ka dhignay dagaal cad oo qolada wax dishay qolada kale ugu baaqday. xataa u sii dheeray in badiba saxaabadii uu nabigu u diray si ay diinta islaamka ugu yeedhaan boqorradii ka talinayay dhulkii ay xukumaysay dawladda Roomaanku in loola dhaqmay si xun. muslimiinta dhankooda wax laga maarmaan ahayd inay ka falceliyaan falalka aadka u qariban ee lagula kacay saxaabada. warka kan ahi markii uu soo gaadhay nabiga salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh aad baa uga cadhooday, waxaana waa amray in la diyaariyo ciidanka kooban 3,000 oo saxaabi. ciidankaas waxaa kii ugu ballaadhnaa ee ay muslimiintu u dagaal galaan waqtiga. intii aanu ciidankani magaalada Madiina ka soo bixin waxa uu nabigu magacaabay 3 saxaabi oo hogaamin doona ciidankan kan ah, isagoo yiri ciidankan waxaa hoggaankiisa aan u dhiibay Zayd ibn Haritha. haddii la dilo waxaa hoggaaminta la wareegi doona Jacfar ibn Abi Talib, haddii uu dhintana waxaa la wareegi doona Abdullah ibn Rawaha. allah ka raali noqdo dhammaantoodii. haddiiba oo 3 saxaabiba shahiidaan, muslimiintu waa inay dhexdooda ka doortaan hoggaan. ciidankii muslimiintu waa uu ka soo ambabaxay magaalada Madiina isagoo ku sii jeeda tuulada Mu'ta oo ah halkii lagu dilay saxaabiga al-Harith ibn Umayr al-Azdi, allah ka raali noqdo. intiisa aanay gaadhin Mu'ta waxa ay ku sii hakateen tuulada Macaan si uu Zayd ibn Harith oo ah hoggaanka ciidanka muslimiintu uga dhursugo ciidamada sirdoonka ah ee uu diray si ay xog uga keenaan cadowga ay fooda iskelin doonaan ee reer Room. waxaase muslimiinta fajaysa ku noqotay markay heleen warka sheegaya inay dhan yihiin ciidamada Roomaanku 200,000 oo askari. ciidanka baaxadda leh ee muslimiinta ku soo limalaabmay dhowr iyo 60 jeer waxaa hoggaan u ahaa Theodorus oo ah boqorka Hiraql walaalkii. isla markiiba hogaamiyaasha ciidanka muslimiintu waxa ay bilaabeen tashi iyaga oo gorfeynaya sida ugu macquulsan ee ay uga hortagi karaan ciidankan tiro ahaan aadka uga badan. ra'yigiina waa lagu kala qaybsamay muslimiinta dhexdooda. qola ayaa tiri aynu nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatay gaadhsiina warka kan ah si uu inoogu soo diray ciidamo dheeraad ah oo aynu ku kordhino tiro ahaan ciidankan aadka uga yarka gaalada. ra'yiga kalena waxa uu ahaa ku aydsanaa hogaamiyaha saddexaad ee ciidanka muslimiintu Abdullah ibn Rawaha, allah ka raali noqdo, isagoo yiri xalku waa inaynu dagaal galno, waxaana noqon laba midkood in aynu ka adkaano gaalada ama inaynu shahiidno. labada xaaladoodbana waa guul. kadib 2 cisho oo tashi ahaa muslimiintu waxay u dhaqaajiyeen goobtii dagaalka si ay ugu babacdhigaan ciidan 60 jeer ku libilaabmaya. taa waxaa u dheeraa iyadoo aanay muslimiinta waxba uga baxsanayn taatikada iyo xeeladaha dagaal ee adeegsadaan ciidamada reer Yurub, maadaama oo ahayd markii koobaad ee muslimiintu dagaal la galaan boqortooyadii waagaas ugu tunka weyneed adduunka ee Roman Empire. arrintaas oo ka dhignayd inay muslimiintu sameeyeen ismidaamintii abid ugu weynay taariikhda. dagaalkii bilaaban waxaa keliya aad maqlaysaa codka ka yeedhiya seefaha aadka waafaysan. indhahaaguna keliya waxay qabanayaan urada ay kicinayaan fardaha dagaalka ku jira, xubnaha duulaya ee madaxyada aadanuhu u badan yihiin, dhiigga butaacaya iyo meydka sii buux dhaafinaya goobta dagaalka marba marka ka sii dambaysa. dagaalka dhan walba markaad ka eegto waxaa kuu soo baxaysa inay guuldarraysan doonaan ciidanka muslimiintu weliba saacada kooban gudahood. hase ahaatee waxaa soo baxday arrin lama filaan ah iyada oo la loodin kari waayay ciidamada muslimiinta 6 cisho oo xidhiidha.
waxaase dhawoobay hadalkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam, waxaana la dilay hogaamiyihii koowaad ee ciidanka islaamka zayd ibnu xaaris, allaha ka raali noqdee. waxaa hogaamintii dabadii la wareegay jacfar ibni abi taalib, isagoo u dagaalamay si geesinimo leh ilaa uu ka shahiiday. intaa kadib hogaamintii ciidanka waxa ay kusoo wareegtay hogaamiyaha saddexaad cabdullaahi binu rawaaxa, ilaa isna uu ka shahiiday oo uu ku dhintay dagaalka dhexdiisa. ciidankii muslimiinta waxaa qasab ku noqotay inay dib u gurasho sameeyaan maadaama oo aanu hoggaan jirin, waxaana raayadii calankii qaaday saxaabiga thaabit ibnu aqram, isaga oo muslimiinta ugu baaqay inay hoggaan doortaan. dhammaantoodna waxay isku raaceen in hogaaminta ciidanka loo dhiibo abbaanduulaha ciidan ee aan weligii ciidanu ku jira laga guulaysan, dagaalyahanka cadowgu faraha kaga gubteen, sayfullaahi almasluul khaalid ibnulwaliid radia allahu tacaala canhu. inkasta oo ay keliya 3 bilood ka soo wareegeen markii uu soo galay diinta islaamka, dagaalkanina yahay kii koobaad ee isaga oo muslima uu galo, haddana waxa uu muujiyey geesinimo iyo hogaamin aan hore loo arag. markii uu khaalid la wareegay hoggaanka, waxa uu dardargeliyey ciidanka isaga oo ka badbaadiyay muslimiinta halaag ay qarka u saaraayeen. markii uu gabalku dumay cadceediina dhacday, labadii ciidanna ku kala laabteen fadhiisimahoodii si ay berri isugu soo rogaal celiyaan, waxa uu khaalid bilaabay dejinta qorshihii dib u gurasho ee ciidan sameeyo ee aabid ugu ballaadhnaa taariikhda. sida caanka ah, inta badan dib u gurashadu waxa ay keentaa guuldarro. haddiiba oo ay dhacday in muslimiintu dib u gurtaan qorsho la'aan, waxaa ka dhalanaysa natiijo aad u xun oo gaadhi karta in dhammaan ciidanka muslimiinta hilfaha loo laabo. si kastoy tahay, haddana dib u gurashadu waxa ahayd xalka ugu habboon ee ay ku dhaqaaqi karayeen muslimiintu, maadaama oo ay la dagaalamayeen ciidan tiro ahaan aan mar iyo 2 toona ka badnayn ee 66 jeer ku limin laabmaya, iyadoo ay taa u dheer tahay in dholkoodii lagula dagaalamayo. waxaaba taa ka sii daran gargaarka soo gaadhay oo aan kala gool lahayn. khaalid allaha ka raali noqdee waxa uu gudagalay fulinta qorshihii dib u gurasho, isagoo isku dayay inuu mooraan ahaan jibiyo ciidankan ballaaran ee gaalada. ciidamadu waagii hore marka ay dagaalgeliyaan waxaa loo qaybin jiray 4 guuto oo kala ah: guutada midig, ta bidix, ta hore iyo weliba guutada dambe. khaalid waxa uu amray in guutadii ka dagaalamaysay dhanka midig u wareegta dhinaca bidix, ta bidixna midig qabato, tii dambena xagga hore timaado, ta horena xagga dambe ka dagaal gasho. arrintaas oo ku keentay inay is-aaminsiiyaan ciidamadii Roomaanku in gebiba ciidamadii muslimiinta ee 6 cisho ay dagaalamayeen kuwo kale oo cusub soo bedeleen. sidoo kale khaalid waxa uu faray qayb ka tirsan ciidamadii farda fuulka inay fardahooda ka soo daayaan buurka sarreysay goobtii dagaalka, si ay isu moodsiiyaan ciidanka Roomaanku in weli gurmadkii u imanayay muslimiintu socdo. allahu akbarta iyo codadka dhaadheer ee muslimiintu waxa ay gilgishay qulubta ciidanka Roomaanka. intaa kadib waxay muslimiintu weerar ku qaadeen ciidamadii Roomaanka, iyaga oo gaarsiiyay khasaare aad u weyn. imaam al-Bukhari siduu saxiixiisa ku soo warinayo, khaalid ibn waliid radiyallahu ta'ala can oo ka warramaya Mu'ta waxa uu yiri: maalintii Mu'ta gacantayda waxaa ku jajabay 9 seefood. dagaalkii oo socda, muslimiintuna yihiin labada dhinaca xoogan ee gacanta sareeya, ayaa uu khaalid amray muslimiintu inay dib u gurtaan. arrintan oo fajaciya ama kaa ku noqotay ciidamadii Roomaanka, iyaga oo isweydiiyey maxaa keenay dib u gurashada adiga oo dagaalka gacan sareeya. waxaanay u qaateen inay tahay xeelad dagaal oo muslimiintu la maagay yihiin. halka ay ciidamada muslimiintu ka fulinayeen qorshe dib u gurasho oo cajiib ah oo ilaa hadda lagu darsay kuliyadaha militariga dunidan maanta. ciidankii muslimiintu waxa ay ku soo guryo noqdeen magaaladii Madiina, iyaga oo kala kulmay cambaareen muslimiintii kale aan dagaalka gelin, waxaana lagu eedeeyay inay goobtii dagaalka ka soo baxsadeen. hase ahaatee waxaa difaacay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxaana uu yidhi: laysuu bilfuraari walaakinahum alkuraaru in shaa allahu caza wajal. dagaalka kan ah ee baaxadda lahaa waxaa kaga shahiiday muslimiinta kaliya 12 saxaabi, halka ay gaalada ka qurbaxeen in ka badan 3300 oo askari. waxaa soo idlaaday dagaalkii koowaad ee dhexmara muslimiinta iyo reer Yurub boqortooyadoodii Roman Empire. dagaalkan oo iba fur u noqon doona dagaalo badan oo isxigxigi doona oo muslimiintu la geli doonaan Roomaanka, ugu dambayntana ay ku furan doonaan Shaam oo dhan iyo dhulal badan oo ay ku taamayeen. fiidiyogeena kana maanta intaas ayaa ku eegyahay. fadlan
waxaan kaa codsanaa inaad muuqaalka like saarto kanalkana ku soo biirto adigoo subscribe taabanaya gambaleelkana aad furato muuqaalka ku xiga intaan isugu iman doono nabadey. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.